halkan waa qayb ka mid ah gobolka geeska Afrika ma tabinayna dagaalo ismariwaa siyaasadeed oo dawlado shisheeye farageliyeen abaar ama dhibaato bulsho soo food saartay waxaanse ka hadlaynaa hannaan dimuqraadiyad haraysay way dhici karaan khaladaad xagga xorriyadda sida dadka qaar ay ku doodaan balse wax weyn ayaan dul istaagi doonaa waana doorashooyin muwaadinku codkiisa ku dooranaya cidda ku matalaysa masraxyada siyaasadda iyo go'aan gaarista somaliland markii lixaad ayaa doorasho ka dhacaysa qof kasta codkiisa xor u yahay xisbiyaduna isku baacsanayaan codka dadweynaha 3 doorasho madaxweyne 2 doorasho golo deegaan iyo 1 doorasho baarlamaan ayaa hore u soo qabsoomay halkan doorashooyinkaas qayb ayaa isku sidkanaa markii saddexaad ee doorasho golayaasha deegaanka loo laabanayo ayay tahay iyadoo ururo aan la kala saarayn iyo doorashadii labaad ee baarlamaanka oo qabsoonta tan iyo somaliland tirada musharaxiinta iyo xisbiyada loolamaya 3 xisbi siyaasadeed oo kala ah kulmiye oo talada haya wadani iyo ucud oo mucaarada ayaa tartan adag ku dhex mari doona 6 gobol ee somaliland waxay ku tartami doonaan 353 kursi heer deegaan 82 kursi oo baarlamaanka dhexe ah musharaxiinta sida hordhaca loo shaaciyay waa 2368 musharax oo wax ka yar 100 ay dumar yihiin gobolada iyo goobaha codbixintuna waa kuwa si weyn u sii bilaya dhacdada halkan ka jirta wadarta codaynta goboladu waa 6 gobol 23 degmo doorasho iyo 1642 ah goobta codbixinta waana la diyaariyay waxaa ka codayn doona dadweyne ka badan 1,200,000 oo kun oo qof sida la shaaciyay waana dadka u diiwaan gashan guddigu ee isu diyaariyay codbixinta qaatayna kaarka codka xilligan gaabisyo badani ma jiraan xilligan waa isbarka yihiin waqtiga guga oo dadka reer guuraagii ku jiraan sahan iyo sacdaal cudurka safmarka ee koronaha ma muuqdaan caqabado waaweyn oo hortaagan qabsamida doorashadan taariikhiga colaadaha beelaha qaar oo dhowaan gobolada bariga ka soo cusboonaaday ayaa iyaguna jira tirada haweenka la rajaynaya inay soo baxaan tartanka ayaa aad u yar taasoo ka dhigan in dumarku kaalin muuqata aysan lahayn dhammaan caqabadaha ama gaabsyadan dadka codbixinaya uma muuqdaan waxay xiiso u qabaan in codkooda ay ku doortaan qofka ay doonayaan waa arrin naadir ka ah gobolka geeska Afrika oo dhanka doorashooyinku sanadkan ay hareeyeen buuqyo siyaasadeed oo nabadgelyo darro cabsi laga qabo inay abuuraan guulaha laga gaaray dimuqraadiyadda halkan ka jirta waa markii ugu horreysay oo dad ka badan 1 milyan ay doorasho xor iyo cadaalad lagu tilmaamay iska diiwaangeliyeen geeska Afrika tan iyo 60maadkii markaas oo Soomaaliya oo midaysan ay qabatay doorasho daahfuran oo sanduuqa lagu ridayo codka dadweynaha doorashadani waxa ay ka dhacaysaa dhulkii ugu fidsanaa Soomaaliyadii midowday 1960kii waxaa la gaaray degmo kasta marka laga reebo Baran iyo Laas Qoray oo ka tirsan gobolka Sanaag doorashadani waxa ay kaloo guul u tahay madaxweyne Muuse Biixi oo noqonaya markii ugu horeysay 15 sano kadib inuu qabto doorasho baarlamaan oo riyaalo dabadi aan ka qabsoomin somaliland baarlamaankana aan la bedelin dhinaca kale waxa ay hoos u dhigi doontaa awoodda maamul ee madaxtooyada waxaana ku soo bixi doonaan xildhibaanadu kalsoonida bulshada somaliland waxa madaxweyne kasta oo soo maray uu ku yimid doorasho ama afti dadweyne taasoo ka dhigaysa inay kaga duwan tahay Soomaaliyada kale oo aan hal marna doorasho deegaan laga qaban waa xujo iyo calaamad su'aal saaran Soomaalida koonfurta oo isku haysta doorasho dadban oo dadkooban ka talinayaan haddana ku qanacsan oo kaliya in shisheeyaha uu wax kala dhaxo dhexdoodana aan kalsooni isku qabin markastana xoogga saaray inay isku dacweeyaan reer galbeedka iyo